Asalaamu calaykum asxaabteeda meel kasta oo aad joogtiin waan idin salaamay. Maanta waxaan jeclaystay inaan idila wadaago sida aan u suubsado qaxwada adigoo gurigaada joogtid aad u suubsan kartid. Waa wax fudud oo basiid ah. Qaxwada horta sideedaba laba nooc waaye. Noocna waa jamro, noocna waa baalbaal. Baalbaalka qaxwadiisa markii la shiido ma macaan badno. Waxaa macaan markay jamrada tahay macaan ahaan ama dhadhan markii la dhaho. Mideeda kaleeto qaxwada oo jamrada kafee waa qaxwi oo waxoogaa bibiya ah. Laakiin qaxwadaas kaleeto waxay noqotaa madow. Sidaas ku kala fahan. Qaxwada markii labadooda meel la iskula shubo laba weel hadaa ku kala shubtid waa kala fahmi kartaa mida jamrada ah. Haddii aan sanjabiil in lagu qaso laga badinin waa la kala dareemayaa walaalahey. Ani meeshaan waxaan ku haystaa qorfo aad u badan u bad qaxwada suubsanaysid qorfo. Ani hadda kiili i bar waaye waxaa meeshaan ku haysto oo qaxwo ah. Waxaan haystaa rubac sanjabiil ah iyo rubac qorfo ah. Waxaan haystaa tumin haaf heel ah. Dad dhagayar ku darsadana way jiraan laakiin aniga jooskeyga ma ahan kumana darsado. Marka walaalahey waa wax aad u fudud, waa wax aad u macaan. Qaxwada lagama maarmo waa ogtahay guri walbeeto oo hooyooyinkeena ama Soomaali ah in subaxda qaxwada lagu asbaxo. Marka waxaan idila wadaagayo waxaa waa inay gabar waliba gurigeeda ku suubsato qaxwada. Qaxwada meelaha laga soo gado jastigeeda aad uma macaan laakiin tan waa mid aa hubtid oo macaan badan. Qaxwada waxaa suubinaysaa gasac aan la furaynin ku shubeysaa. Qaybna waxaa ku shubanaysaa gasac yar oo aad ka karsatid mar walbo oo aad rabtid. Subaxi timirtaada ku cun, buskudkaada ku cun, wixii macaan oo dhan qaxwo. Bisinka qaxwo qaraar. Qaxwo macaan ma cabnayaa anaga qaxwo qaraar iyo timir shaah lagama waayo. Waxaan ku dhahay qaybaas waa iska dhisnaa Soomaali haddaan nahay. Waa kana mar dhow waxaan isla aadaynaa dabkii iyo qaabkii aan qaxwadii aan soo shiil lahayn waa la shiilaa buskeeta camal. Maqliga ama digsiga saa u taqaanid ayaan waxaan ku soo shubayaa furjalaataha. Waxoogaa afka ku joogo oo saliida qaxwadaada intee la eg tahay ayaa lagu xisaabtamaa. Waa kana saliid waa ujeedaa. Waa ku soo shubee tartiibtaada waa isku gidgidinaa haddii aad ka tagtid qaxwada way ka kala bislaanaysaa way madoobaanaysaa. Qaxwada waxay la mid tahay oodkac hadaa ka tagtid hal meel oo ka guduudanaa meesha kale oo ka cadaanaa soo ma. Qaxwadana waa sidii oodkac oo kaleeto waa inaad walaaqdid oo aad si tartiib u qasqastid adoo hawshaada kala haysatid ayadana aadan ka caajisin oo aad gidgidisid. Maasha Allah. Haddii aad rabtid istiraashaa qaadan kartaa waa soo gidi kartaa midii hooso aa kor soo marsii kartaa. Laakiin waxaaba ka fududba inaa miikaha ama qaada shabaqa qaadatid oo saas isku dhex marsiisid. Marka jastigeeda aad ayuu u caraf badan yahay aad ayuu u macaan yahay qaybta dhadhamiska aniga waa subax saddexdaad xabbo timirta soo qaado. Dhag subaxda waxaa ugu khayr badan inaad 3 xabbo timir cuntid ama 7 xabbo timir. Marka macaana goos iiga dhacayo. Subaxii alisay timir ma cuni karo waa kula laboonayo ma jirto koobkaada qaxwo qaraarta jac ka sii. Oo isku dhamaata qaxwadaada la hubo carafta badan marka howlahaas aan ku dhahaa la iska dhiso. Dadka Soomaali jooga horta qaxwada waa aragteen meel walba maraan luuqa ka soo baxaan baloor ay ka taagan tahay. Waa is ognahay soo ma. Dadka maqana inay helayaan waa laga yaabaa ayaga meelo laga helo waa arkay qaxwada ee buuxdo. Itoobiya oo kaleeto bunka waa loo daayay waa aragtay. Nairobi waa laga helaa laakiin meelaha kale ma sheegi kari in ayadoo shiidan laga helo macquul. Waa kaas sheekada saan leh u lab adig kuwad labooga ha ka daalin ha ka caajisin. U baxday waa soo diyaarineena. Waa kana soo diyaarinay markii ku qaboodo. Si aad ugu qaadid meesha ku shiidi lahayd oo makiin ah u marsiisid. Mideeda kale waxaa iga dardaaran ah qaxwada markaa soo shiidid waa inaad baxdaa ku soo shiida afka uga xirtid. Waa inaad gasac fiican oo daboolkiisa adag yahay aad ku ridid. Haddii kaleeto carafta ayaa ka baxayso
qayb meel ku shubo aa ka karsatid oo isticmaashid markay kaa dhamaato haddana qaybta kale ku shubo gasac adag daboolkiisa adag yahay oo sakuurada dhab ha lagu siiyo sheert iyo leegt iyo commentiga iyo subscribe-ka waxa dhan waa xaggiina dhacdhaca nagula soo siiyo wax weliba oo aragno idiga daba geynaynaa insha allah walaalihii meel kastoo aa joogtiin waan idin jeclahay thank you so much